فوضه إله ربي وحق صوت ظاهري إله ربي وعدالة وهيلي وايه فيروس waxaan rabaa adoo magacaaga sheegayo inaan ku dhaarato information-ka aad bixinaysid inuu run yahay waxay waxa uu bilaabtaa la information-ka aan dhiibayo anoo hebel waa run ay ka arta maxkamadda يا إله إلا الله محكمة بل يقولوا علي بل قرن ما ينوع محكمة wax anigoo ah hebel waxaan ku dhaaranayaa magaca alle waxa aan sheegay in run yihiin anigoo Firuus Caliya waxaan sheegayo ee maxkamadda ka sheegayo inay run tahay ee xibid ayaan ku dhaaranayaa magaca alle ayaan ku dhaaranayaa waa ka gacantaydii waa ka shantaydii gacmood walaalkayo waa dhaaranaysaa waxa ku dhaaranaysaa waxa aad sheegaysid oo magaca ku dhawaaqayo inay run yihiin asma waxaan maxkamadda sharafta la dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed waa nila salaam waxaan halkaa ku dhaaranayaa waxayga wallaahiya oo iga bilaahiya oo iga tolaahiya anigoo Asma Kaabeya Tumba ah inaanan maxkamadda horteeda wax run ka sheegi doono oo wax been ka sheegi doonin وايا سودو فيروس قرحي gabadha ayadu taa ku soo dacweysay waxaana jaas ku siinaya waxyaabay ku soo dacweysay inaad ka jawaabto eedaymihii lagu soo jeediyay annaga ku dhageysanayna horta waxa iyadanu daynayaa bal inta ay dacweysay waxay ku dacweynayso bal hay is sheegto okay hay asma qodobada ku dacweynayso soo koob waxaan ku dacweynayaa ayaday qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas qodobay ana markaa baan ismacnaynay ilaaha waxsan naga dhawaaji afkaygana been ka ilaali horta gabadha ayadaya marna waalidkaygu toosan waxa isku kaaya keenay waa abahay waxaan isku haysanano waa abahay dibtu meesha ay ka qooshan tahayna waa abahay marka aniga oo ma hali kartaa Firuus aniga oo ku eedaynaya aayaday in ay farxadii aabahay iga dheeraysay in ay markasta oo aan dhibaataysanahay ay igu tiqtiiqsanayso ay aabahay sawiraan iyo adduun iyo wax kasta u sheer garaynayso in meeshii layga caynayo amba layga afligaadaynayo in adeernimo ay dad ugu soo baxayso intaa baan ku haystaa okay waxaad ku eedaynaysaa inay farxadda aabaha kaa dheeraysay aabaha kaa xigsatay waxaad ku eedaynaysaa in mataqaanaa ay aabaha u sheer garaynayso sawiradaada iyo waxyaabaha adee lagugu ceebaynayo waxaad ku eedaynaysaa saddex inay qabiilnimo dadka aysan reer Djibouti ciisaha ay kala safarayso saddex maad ku darsanaysaa qodobka ciyaalkaaga qodobka ciyaalkaygu waxa weeyaan ku hayso ilmaha ilmaha inay ciidu ku hayso ku qanacsanta mise inay gaalada ku hayaan ku qanacsanta wallaahi horta waa gabadh wax la joogta nin maaha waa oga gabar wey waa cawrad wax la joogta abti maad ku qanacsanta aayo inay iho aabba kula joogto gabadhu mise inay gaalada kula joogto ku qanacsanta wallaahi maanta xaaladda ay jirtaa waxaan ku qanacsanahay inay inantaydu Soomaalida kala gacanta lagaga rido okay way nasoo bax marka Firuus ay mud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فيروس علي باليرادة برشو وناكسن أمدا Soomaaliyeed meesha yodan joogta waan soo wala salaamaya horta inkastoon aan garanayn markii hore Daahir Cali Sow iyo maaragtay maxkamadan iyo waxaan oo dhan aan qof commerce ku waalan baanahay waan bartay waan maadsantahay walaalkayo intaan maanta halka aan soo horjoojisay way fiicantahay wallahi da waan ku faraxsan yahay waa maadsantahay marka waxa weeyaan horta anu horta marka u horeysa qodobka u horeeyaan ka jawaabi horta bal sida sheegayso qodobka u horeeya waxay tiri aabahay baad iga dheeraysay
maaha aabbahay iga dheerista horta de tufason anumaba ogeynba inay jirtaba maxaaban dheeraynba waxba ma jirtaba anigu maan ogeyn inay jirto markii la ii sheegay ee way jirtaa hooyaday iga tidhi ee xaafadayada lagu hayay 3 sano ay ku noolayd ee hooyaday sidayda u soo korinaysay u soo haysay markaan ogaaday waa ilmo caruurtayda lamida marka demarshki waxaan u bilownay processorskii lagu keenayay yaan bilowday warqadihii aan ku keenaynay yaan bilownay markii aan ogaanay ummadda Soomaaliyeed oo dhan af Soomaali ku hadlayso oo dhan waa témoin way wala fahmayaan waana markhaatiyooyin ayaantii inaan u bilaabay da'deedu 15 16 mooya wax bay ahayd waxay ahayd 2019 yahay waa ka 2009 yaan u bilaabay marka ogaanay markiiba waan bilaabay han bilaawno inanta iyada afkeyga yaa aniga mar iskool may dhigin warqada ma garanayso ma akhrin garanayso markaa kolba qof bay kaxaysanaysay oo warqadaha kaga ciyaarayay kolba way ka xumaanaysay magaceegii kol ninba mooyaan ay isfahmeen oo ay ku dartay waga warqadihii baa ciyaarmay 10 sano ay naga qabsatay 10 sano yay naga qabsatoon anigu tiirkal kolkol soo bixinoon imanayay oon safaaradda tegayay oon warqadaheega u hagaajinayay waxaayoo dhan maxaan u samaynayay inaan isku keeno jawaabteeda waa taa haddaan doonaya inaan kala dheereeyo maanta xaylkaa ima soo joojiseen imana hadasheen oo Djibouti yay joogi yahaydoo $100 ku tuurban qodobkaas waxa weeye adiga kalabaad dheereen iidii aabaheed qodobkaas xaga dhig de taay waa taa aabaheedan isku soo dhaweynaya anu ma kala dheeray صح وي صح هي صعب قولك لبعض inaad sheer garayso waxyaaba xumaanteeda aabbaha u dirto tiraahdo gabadhaadi waatan saani samaynay kugu eedaysa sheer garaysiga ani waa laysoo sheer gareeyaa marka laysoo sheer gareeyo uma wala sheer gareeyo uma sheer gareeyo waxyaaba qaar waa tustaa aabbaha waxyaaba qaar waa tustaa oo buuqa joojiya waxyaabaha qaar waa tustaa aabbe garaale hada ya waxyaabaha qaar laakiin aabbo waa tustaa aabbo ma tuso in badan waa ka qariyaa isagaa soo hela Soomaali badan buu garanayaa Djibouti ku noolaa macallin professor buu haa ardaydiisii oo dhan buu haystaa family buu haystaa inantaadii marka la yiraahdo odaygii markuu ii weydiiyo waa run inaan anigu afkayga ha dhaawaysaa maxaan ka helayaa maxaan ka helay waa gabadh oo sidayda hablahaygoo kale lamida oo maxaan ka helayaa okay kaas waa ka jawaabtay qodob ku saabsan inaad markay dad Ciise isqabsadaan aad kala safato taa wallahi waan jeclaa si fiican inaan uga jawaabo inantu waa anigu Ciise isaa wax ani waxba iga mid Soomaali baa igu filnaa iyadana Soomaali way badhaafsantaho waa ilmaha odaygaygu dhalay oo maxaa ka hadliba maba Soomaaliyad baaba maxaa kala saar iyada yaa ku yar baa haysata qolonimada marka way soo dul dhigtaa daday wax yar ugu hesho anu qolo ummadayda saaxiibaday rumaad in ciisho milixnahay oo ilaa maanta noolnahay wanaag isaaqa aday ogtahay ma oga sadaqadeeda ha ku darsatay aniga inay igu darin taa weeyaan anigu ma oranayo na isaaq baa too waan ku naca weligii oran maayo waayo qodobka saddexaad qodobka afraad ilmaha in gabar kale oo Soomaali loogu dhiibo taas maxaa u jawaabaysaa gabadheeda walaalkayo horta taa kama jawaabi karayo waxaan uga jawaabi karay ma aragtay inanta yar dawlad baa haysata markay dawladii haysatana anigu ilbaabaan u furay
iyo inanta yar cadaan inuu qaadan unban anu u hayaaye anu shuqul kuma lihin dowlad baash arrintan shuqul ku leh anigu waan ordo uno